بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا كلن كلا iyo taxanaheena buugadaag kulankan waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena maqaal ama qoraal oo qoray qoraaga iyo cilmi baaraha Francis Fukuyama oo uu ugu magac daray Why National Identity Matters. Francis Fukuyama waa qoraa iyo cilmi baare reer Mareykan oo qoray qoraale iyo buugaag kala duwan. buugaagta oo qoray waxa kamid ah buugga The End of History and the Last Man, sidoo kale buugga The Clash of Civilizations iyo buugga maqaalkan aynu wadno ka farcamay oo la yiraahdo isagana Identity iyo buugaag kale iyo maqaalo kaleba. maqaalkan Francis Fukuyama sida ciwaankiisa ka muuqata wuxuu kaga hadlayaa maxay muhiim u tahay baadi socda ama summadu qarannimada iyo jiritaanka dawladaha. ugu horreyn wuxuu leeyahay taariikhda aadamaha loolanka inta badan dhex ooli jiray iyo hirdanka ka dhaxeeyay wuxuu ahaa inta badan mid dhaqaale ku salaysan oo dadka ama kooxaha ama dawladuhu waxay isku riixriixi jireen isku caabid jireen ama dagaalada ama dhaqdhaqaaqyada ama isbedeladu inta badan u yiman jireen waxay ahayd mid salka ku haysa arrimo dhaqaale. laakiin globalizationka ama edagooga adduunka hadda ka bilaabmay wuxuu keenay buu leeyahay ama uu soo shaacsaaray loolan kale iyo hirdan kale oo markaa isagu u bixiyay the politics of resentment oo ah markaa siyaasadda iska caabinta ama ismuujinta. waa siyaasadda uu leeyahay markaa waa in dad markaa hogaamiyayaal ay markaa kooxaha iyo dalalka iyo dadyooga ay u abaabulaan sidii dadkaas ama kooxdaas la saaray calaamad su'aalka ama weydiinta la galiyay jiritaankooda iyo doorkooda ay ku dhexleeyeen bulshada ama dunida caalamkaba sidii ay markaasi usoo bandhigi lahaayeen una muujin lahaayeen una heli lahaayeen aqoonsi ay u qalmaan ama ay tahay in la ogaado. wuxuu tusaalayaal soo qaadanaya markaa ama uu leeyahay waxa kamid ah markaa dalalka tusaale ahaan siyaasadda caynkaas oo kala ah ee ku salaysan markaa ismuujinta iyo summadda iyo jiritaanka bulshadaas xiriir kale leh uu soo qaadanaya dalka China oo kale wuxuu leeyahay ololihii uu bilaabay madaxweyne Xi Jinping markaa ugu magac daray 100 sano oo gumaysiya. marka waa ololaha uu madaxweynahaasi buu leeyahay uu dadkiisa kula hadlayay uu ku abaabulayay ma ahayn buu leeyahay mid dhaqaale ma ahayn wax kale laakiin waxay ahayd mid jiritaanka China iyo inay 1000 sano ahaan jiray awood dunida ah ay diidan yihiin dalalka qaar uu kamid yahay Mareykanka oo kale taasoo markii dambana keentay buu leeyahay markaa ama qayb weyn ka ahayd guusha maanta China uu keenay. waxa kale oo uu tusaale soo qaadanaya Ruushka oo kale kadib markaa 1990kii burburkii midowgii Soviyetka taasoo markaa uu leeyahay Vladimir Putin wuxuu u abaabulay dadkiisa iyo dalkiisa isagoo ku wajahaya markaa in reer galbeed ay yihiin markaa kuwa raba inay awoodii iyo quwaddii Ruushka ee burburtay awgeed ay dadkii markaa usii haysan karaan dadkiisana markaa ku abaabulay. wuxuu leeyahay maaha oo kaliya siyaasaddaas iska caabinta ama ismuujinta ama ahaanshiyaha aqoonsi raadinta ah mid heer dal ku kooban sidoo kale wuxuu leeyahay heer bulsho tagta oo tusaale wuxuu ka soo qaaday imka ololaha bulsho ee Black Lives Matter ee hadda Mareykanka ka socdo kale ay tusaale soo qaadanaya iyo ololayaal kale. Francis Fukuyama wuxuu leeyahay markaa iska caabintaas ama loolankaas hadda ugu magac daray midka ismuujinta ah ee aqoonsi raadinta ahi marka la garab dhigo midkii dhaqaale ee dadyooga iyo dalalku isku hayeen waxa ka awood badan buu leeyahay midkan summadeed ama qofku uu rabo ama kooxdu ay rabto ama dalku uu rabo in lagu aqoonsado ama lagu garto waxa ay yihiin waxa ay gudaan iyo waxa ay galaan. wuxuu leeyahay markaa doonistaas ama raadintaas summadeed inta badan buu leeyahay horta summadu waa wax uu ku sheegay leeyahay waa sida kooxi ama dal ama dad ay isku yaqaanaan iyagu duunkooda hoose ama inner self-kooda sida u arkaan iyagu waa identity buu leeyahay. marka sida ay u arkaan hadii dadka kale ama dadyooga kale ama cidda dibadda iyaga ka ahi ay u arki weydo halkaas uu ka dhashaa buu leeyahay marka loolanka hadda uu sheegay leeyahay waa loolanka ismuujinta iska caabinta. marka koox ama dad ama dal iyagu sida isu arkayeen iyo waxay gudayeen iyo waxay ahaayeen la aqoonsan waayo ama loo arki waayo inay muhiim u tahay loolanku inta badan halkaas uu ka dhashaa waana mid ku salaysan buu leeyahay sharaf raadin ama dignity ay dadkaas raadinayaan. sharaftu waxay ku xiran tahay buu waqtiga la joogo iyo dadka laga hadlayo mar walba. marka dadka qaar sharaftooda waxa lagu qiyaasaa ama ay ku qiimeeyaan bulshooyinka qaar buu leeyahay sida uu qof marka intuu dagaal u tago
uu ugu dhiman karo wuxuu aaminsan yahay waxa laga yaabaa mararka qaar in ay ka doonaato taasi muhiim ah buu leeyahay laakiin waa sida mar walba kooxdaas ama bulshadaasi ay iyagu isku arkaan iyo sida dadku u arkaan ama dadka dibadda ka ay u arkaan kala deganaanta halka ka dhalata ayaa keenta buu leeyahay marka siyaasaddan uu leeyahay waa siyaasadda ismuujinta iyo iska caabinta wuxuu soo qaadanaya marka halhayska Hegel uu leeyahay waxa ugu weyn ee taariikhda aadamaha sameyn jiray waa loolanka aqoonsi raadinta ee ciidahaas ama dadyogaas ay ugu jireen ama si kale hadeen u dhigno wuxuu leeyahay loolanka aqoonsi raadintu waa dhaqaajiyaha ugu weyn ama sameeyaha ugu weyn ee taariikhda aadamaha Francis Fukuyama qoraalkan waxa kale oo kaga hadlaya wuxuu leeyahay hadaba identity-gu maadaama uu yahay waxa saameynta inta leeg yahay yaa sameeya sidee bayse u dhalataa inta badan wuxuu leeyahay identity-ga ama sumadda ama baadisocda uu qaran yeelanayo waa waxa sharciyeeya ama keena nidaam meel ka jira in la aqoonsado ama lagu daba faylsanaado waxa sal u abu leeyahay marka sumad iyo astaan identity qaran inay jirto waxa qeexa marka sumadda dawladnimo ama qarannimo dugsiyada ubadka dadkaasi ay leeyihiin ay dhigtaan muxuu yahay afka lagu dhigtaa dhaqanka ummadaasi ay wada ilaalisaa muxuu yahay sheekooyinka ku sal kale halkii ay dadkan ka soo jeedeen iyo taariikhdooda ee ay wadaagaan maxay tahay waxa dadka ka wada farxiya ama ay u wada dabaal degaan muxuu yahay qiyamka guud ahaan ay wada aaminsan yihiin muxuu yahay iyo qof kasta oo qaranka ka mid ah maxay tahay waxa cid guud ahaan ay qarankaas iyo bulshadaasi ay ka filayso ama ay ka rajaynayso inay sameeyo ama laga filan karo qof kasta oo bulshada ka mid ah inuu ku dhaqmo ama loogu soo hagaago laga talagalo wuxuu leeyahay marka meelaha maadaama oo sumadii qarannimo ama national identity-gu ay sal u tahay jiritaanka nidaam sharci oo dawladeed meelaha aanay jirin marka sumadda dawladeed ama ay daciif ka tahay inta badan waxay la darsaan qalalaaso colaado iyo dagaal sokeeye waxa kamid ah buu leeyahay Afghanistan waxa kamid ah Liibiya waxa kamid ah Soomaaliya iyo dalal kale meelaha ay sumaddaasi xooggan tahay حتى مرة قارد كاسي دجالو يو على هذا الحدود أو ده مرة بهجرانه سيدا تشاينا يو جابان يو كوريا وحا أتكاتبوا لي هاي أو مرول با شرح حسيلون السياسات يا نظام دولي أو الرجع مادام أو أي international identity أما صمد يبعد الساع قرن أو الإسلامية قانون هالك يكبل عبنتو يو وحا أيتها يو عدة مركا قرن كلا شيء يو حدوده سي أستامهاس يلا نيسا wuxuu ka warramayaa oo qaybaha dambe ee qoraalkiisa oo ku soo bandhigaya marka qodobada ay muhiimka u tahay in national identity ama sumad qarannimo inay jirto waxyaalaha muhiimka u tahay ka soo hadlaya number 1 wuxuu leeyahay markasta oo ay jirto sumad qaran ama baadisooc qaran oo la isla garanayaa waxa xoogaysta buu leeyahay ammaanka waxa xasiloonida iyo deganaanshaha iyo dadkaas nabadda ay ku nool yihiin mar walba waxa weeyaan wuxuu leeyahay waa mid waarta markasta oo mid la waayana inta badan wuxuu leeyahay waxay keenaysaa qalalaas waayo sumaddu wata ilaalinaysa buu leeyahay wax isku haanshaha cida iyo bulshooyinka iyo kooxaha kala duwan ee meesha jira ama qabaa'ilka ama qowmiyadahaas ay garanayaan marka mid waliba roolka iyo doorka ay ku leedahay qaranka guud iyo halka ay ka galayso laakiin haddii aanay jirin oo aanay qeexnayn inta badan waxa abuurma colaado iyo dagaal la sokeeyo laba baadisoocda qaran waxay keentaa dawladnimo wanaag nidaamka dawladeed ee dadka iyo qowmiyadaha iyo qabaa'ilka iyo kooxaha kala duwan ka dhaxeeya marka uu leeyahay baadisooc la isla garanayo waxay keentaa in cid walba oo dawladda ka shaqeynaysa ama loo igmaday ama loo diray waxay ka shaqeynaysaa in noqoto qeexida ama qarannimadaas iyo baadisoocda ay leedahay inay u shaqeyso waxa meesha ka soo baxaysa markaas oo meesha ka baxaysa buu leeyahay oo baadisoocda qaran ay keenaysaa in la kala sadbursado in qowmiyado ama kooxo ama reero ay kala sadbursadaan oo midiba midka kale magaca dawladda iyo manfaca dawladda uu wax kaga riixda meesha ka baxaysa marka la helo national identity ama sumad dawladeed marka la helo taasi keenaysa markay taasi timaado qodobka saddexaad keenaysa wuxuu leeyahay dhaqaale ahaan iyo waxayntii dadkaas iyo dalkaas iyo in maalgashiyo lagu sameeyo iyo in waxa weeyaan dawladnimadaasi ay noqoto mid kobcisa dhaqaalaha dadkeeda ayaa iyaduna meesha imanaysa waxa meesha ka baxaysa buu leeyahay marka danaysigii kooxeed ama qowmiyadeed ama qabiileed ee marka cid gaar ah marka ay uga faa'iideyn lahayd nidaamkii iyo resource-kii dawladda koox gaar maadaama oo national identity iyo wax guud iyo sumad guud oo la wada ilaalinayo oo loo wada dagaalamayo oo la wada aaminsan yahay ay jirto
ugu dambeyn wuxuu leeyahay markaas ummadda iyo baadi socda qarannimo waxay keentaa marka kalsooni dadka iyo ummadda dhexdooda iyo dalkaas abuurta iyo dalka kale ama dalyowga kale iyo dibadaha iyo bulshooyinka kale la dhaqmayaan dhexdooda xataa kalsooni iyo trust bay abuurtaa waxa kale oo ka hadlaya hadda sida loo qeexay iyo doodaha ka abuurmay muhaajiriinta iyo migrationska adduunka iyo sida ay u saameynayaan dawladaha iyo sida u qeexi jireen identity-ga waa maqaal kooban laakiin runtii nuxur badan sida cid kastoo akhriyo kartana aan kula talin lahaa inay akhrido kulanka kan ku xiga intaan ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag waa adduun wadaag hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali Ingiriisi iyo Carabiga soo buuqo Hema Books oo baahitir maskaxdaada